qaybtii hore waxaan ku dhamaynay HTML-ka page-ka koobaad. Waxa kaloo aan samaynay inagoo dhowr waxyaabood baan ku qabanay. Marka koobaad waxa aynu ku dhamaystirnay setup-keena oo waxaan diyaarsanay environment-ka aan ku shaqaysanaynay ama environment-ka aan project-kan ku sameynaynay oo sida inayn folder-kii samaynay, images-kii diyaarsanay, iyo inaan kala habaynay wixii aynu sameynaynay. Waa midda labaad oo ahayd intii ugu badnayd oo ahayd inaynu dhammaystirnay HTML-ka page-ka koobaad. Waxa kaloo aynu ka hadalnay ama waxa kaloo sheegay meesha aad ka heli karto icons free ah si markaasi ay kuugu dhib yaraato dhisitaanka website-yo casri ah oo qurux badan. Okay, marka hadda waxaan sameynaynaa oo inuu gudagelaynaa CSS-teeni. Waxaan odhanayaa markaa ugu horeynba haddaan wax ka bedelo bodiga fonto kamaan helin font family-gu say tahay. Marka waxaan odhanayaa computerkay kuma download garaysnaa. Aduu nooca rabtad ayaad ka dhigan kartaa, laakiin waxaan rabay font family kale inaan ka dhigo. Waxaan tegayaa markaasi Google-ka. Marka waxaan odhanayaa Google font. Deetana halkan ayaan markaasi ka raadinayaa font family la yidhaahdo Montserrat. Hadda wixii kala weydiinayaa nooca aan doonayo ama xajmiga ay leedahay nooca aan doonayo. Waxaan odhanayaa markaas mid semi bold ah tan. Halkan aan click siinayaa markaas. Haddii aad u baahan tahay waxaad samayn kartaa download. Haddii kalena waxaa odhan kartaa embed. Embed macnaheedu waxa weeyaan inaad ku xidhiidhinaysid filekaaga HTML-ka. Intaan markaa copy odhanayaa kadibna waxaan dhigayaa markaa HTML-ka qaybta sare ee headka. Si aanan u iloobin waa inaan markaasi file walba dhinaciisa sare dhigaa. Headka gudihiisa. Contact. Yani failashan way maran yihiin waan samayn doonaa, laakiin just waxaan hadda sii dhiganayaa un font family-ga qaybta sare ee headka markaas. Halkana waxaad ku qoraysaa marka halkan font family-ga internet ku qoraysaa markaas. Save. Haddaynu eegno markaa page-keena imika waxaan arkaynaa in font size-kii ay noqotay nooc ka duwan markaas noocii markii hore ay ahayd. Waxaan arkayaa in wixii ku dhex jiray website-ka oo dhani ay wada noqdeen wada links, yacni wada linki ay noqdeen. Haddaad aragtid meel saa buluug u ah oo underline-na wadata waxay ka dhigantay inuu link yahay oo lagu dul dhufan karo. Marka cilad baa ka dhex jirta meesheen code-keena. Aan markaasi eego meesha wax ka khaldan yihiin. Okay, linkyada haysanaa waa kuwan. Kaas waa halkaa ku xidhmay. Kan okay, kanaan ilownay inaynu xidhno. Marka isagaa ka dhigaya wixii ka dambeeya oo dhan inay wada link noqdaan. Waxay ka dhigantay inuu weli furan. Marka aynu xidhno save. Imika waxaan arkaynaa inay markaasi aanay linki ahayn oo ay saxsan yihiin. Aan sii wadno markaa CSS-teena waxaan odhanaynaa padding eber ka dhig, yacni site-ka geeskiisa halkaas geeskaas waa inuu markaasi eber noqdaa. Sidoo kale margin-ku bilow ahaan waa inuu eber noqdaa. Haddaan save nidhaahno waxaa arkaysaan inuu markaasi ku dhegay markaas geeskaas. Markii horena waxoogaa ayuu kasoo durugsanaa. Background color-ka waxaan ka dhigaynaa background color-ka website-ka oo dhan light gray. Waxaanu bilaabanaa markaa imika container-keena ama class-kii container-ka ahaa ee aynu haysanay. Waxaan odhanaa width-kiisa waxaad ka dhigtaa 90%, yacni waa balliciisa waa inuu 90% ahaadaa. Waxaan leenahay markaa margin-kan waxaad ka dhigtaa mid auto ah oo markaasi dhexda dhigaya, yacni uu soo durkiyey oo waxa uu ka dhigay mid dhexda dhigay. Overflow hidden, yacni inaanay content-ku isku daba dhicin ama iskorgelin
ayaynu leenahay markaasi hidden ka dhig. haddii aan u galno markaasi qaybta headerka header comment marka CSS lagu dhex qorayo waxaad sameynaysaa \xidig \. deetana halkaas ayaad ku dhex qoraysaa wixii aad doonaysay. marka halkan waxaan ku dhex qoraynaa header. waxaan odhanaa markaa header backgroundkiisa waxaad ka dhigtaa white, widthka waxaad ka dhigtaa 100%, yani waa inuu noqdaa mid 100% white. waxaad u qori kartaa sidoo kale 3 nooc baa loo qoraa markaa kalarada, ama toos baad kelmad ahaan u qori kartaa, ama waxaad qori kartaa #FFF kolba kii markaasi adiga kuu fududaada. marginka waxaan odhanaa auto, yani mid dhexda yaala oo auto ah. colorkana waxaan ka dhignaa markaasi gray. aan eegna markaasi hadda waxaan arkanaa inuu backgroundkii headerku isku bedelay mid markaasi caddaan ah ama white ah. okay, borderkii waxaad ka dhigtaa markaas mid light green ah. 2 pixels waa inuu noqdaa. borderku waxa weeyaan markaasi yani xuduudda kusoo hareersamaysa waa inuu noqdaa color light green ah oo cabirkiisu yahay 2 pixels oo solid ah, markaas line dheer oo aan markaasi googo' lahayn. haddaynu nidhaahno inkastoo cashar aan ku sharaxay borderka, laakiin handara halkan waan ku celin doonaa oo dad baa jira aan kuwa dhegeysan. dashid baan imika kusoo qoray, waxa uu noqday markaasi mid dash leh. sidaa awgeed waxaan ka dhignaa mid solid ah. haddaynu ka dayno borderka waan ka daynaynaa. waxaan odhanaa markaasi barin top, yani qoraalku inta uu dusha kasoo yara fuqayo, yani cabirka u dhaxaynaysa geeska sare iyo qoraalka. waxaan odhanaa markaasi ha noqoto 30 pixels. min height waxa weeyaan waa heightka ugu yar ee uu noqon karo markaasi headerkeenu. waxa uu noqonayaa markaasi 50 pixels. waxaan u sameynaa markaa hadda border bottom. markii hore borderka oo dhan baheed waa hareerahoo dhan, imika keliyaata waa qeybta hoose. markaasaynu markaa odhanaa light green 3 pixels solid. haddaynu eegno waxaa arkaynaa inuu bartaasi ku samaysmay. text transform waxay leedahay waxaa bedeli kartaa markaasi textidaadu designka ay leedahay. waxaan ka dhignay hadda uppercase, text waaweyn markaasi. hadda waxaan sameynaa markaa header nav, yani naafti ku dhex jirta. haddaynu halkan tagno waxaan haysanay headerkeenu waa kaas. waxaa kusii dhex jiray containerkii waan sameynay. waxaa kusii dhex jiray oo meelahan yaalay naafti waa taas markaas. naaftaasaynu markaa waa inta haysa markaa intan qeybahan pagejku ay ku qoran yihiin linkiyadan waa qeybta haysa. qeybtaasaynu markaa bedelaynaa. waxaan odhanaa header nav float right, yani waa inay qeybta midigta tagtaa. save. qeybta midigta ha tagto. waxaan arkaynaa markaas inay u wareegtay qeybta midigta. margin top, dusha sare inta u jiraysa markaasi 5 pixels. haddaynu halkan tagno headerka dhexdiisa waxaan ku haysanay container. okay, brandintaas ayaynaan samayn. okay, aynu markaasi brandintaas iyadana style ku sameyno. header branding, laakiin brandingku waxa uu ahaa muu ahayn markaasi tag muu ahayn, laakiin waxa uu ahaa div id ah. marka CSS div id ah aad ku bedelaysid waxaa isticmaalaysaa markaas hashtag branding. deetana waxaan odhanaa iyadu float left color light green. aynu hadda markaasi kuwan hagaajino ha noqdaan qaar markaasi isdhinac yaala sida websiteka marka uu dhammaystiran ka muuqata. okay, intaynaan u gudagelin taas
waxaan haysanay h1 oo headerka kusii dhex jirtay header branding h1 يعني intan imika waan iska masixi karaa oo h1 keliyaata waan saasoo kale waan qori karaa laakiin waxa fiican waxaa dhici kartaa in page weyn oo saa'id u tira badan oo laga yaabo inuu leeyahay kumanaan kun oo line oo code marka waxa fiican in aad markaasi cayintid h1 tani meesha ay taalo marka qofkii haddii qof aad isla shaqaynaysaan si yaroo dhib yar buu u fahmayaa waxaad u jeedid h1 tan iyo meeshay taalo xitaa adiga laftarkaaguba hadhow toole markaad codekaaga kusoo noqotid maalin kale isla markiiba indhahaagu markay ku dhacaan waad arkaysaa marka waa practice fiican inuu qofku markaasi sidan oo kale u qoro codekiisa marka waxaan odhanaa tan marginteeda waxaad ka dhigtaa eber positionkeedana waxaad ka dhigtaa fixed haddaynu websiteka kale eegno marka halkaa lagu dul dhufto waxa uu noqonayay markaas waxa uu ahaa link marka aynu halkan tagno aynu ku xidhiidhino markaasi maadaamuu homeka yahay homeka aynu ku xidhiidhino si uu markaasi link inoogu noqdo